sidatay sidaa tahay baa noqdo walaalkaas xawaay inay dhalashadu sabtahay dhibaato markay igu sidatay sidaa tahay baa noqdo walaalkaas xawaay بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعمالين سنين عشان يطبنك بيش جون لبكون يلباتنك مقعيقو وفارح وطر روبلي ودونا ينو دور اريكاي راهدو هذا الله دحس عدم ميديها ام ببرها بلشدو ايكو كولنتو haddii intaanan hadallada u gelin aan ka soo qaato qodob waxaa la hadalhayay dalka Jabuuti kacdoon baa ka socda kacdoonkaas oo ka bilaabmay walaalkeen dowliye Fuad dulmiga loo geystay dulmiga oo daha ka qaaday dulmiyadii daahsanaa aan la arkayn kilibkii fideoga ahaa uu ka soo duubay jeel Jabuuti jeelka la yiraahdo ee gabood ku yaala oo Fuadna hortii rag badan soo mareen Fuadna hadda ku jiro iyo qaar kale oo badan waxaa bilaabmay kacdoon ah inay ummadii reer Jabuuti oo qoomiyada kala duwan ahayd isku raacaan inay dulmigan iska tuuraan arrintii oo dadkii reer Jabuuti oo kala fikir duwanaa kala qoomiyad duwanaa laakiin Jabuutiyaannimada wadaagayay kala af duwanaa ay mar quraatay shiraadeen reer Jabuuti baan nahay waxaan doonaynaa isbeddelkaasi oo ah isbeddel baan doonaynaa oo maahane in mid cadaalad dadka u horseedo dadka cadaalad baa deeqdee dadkii ay yiraahdeen cadaalad baan doonaynaa isbeddelkaasi qoomiyad baa samayn karta reer Jabuuti dalka Jabuuti waa dal yar laakiin qoomiyadaha ku nool qoomiyadahaasi waxay leeyihiin kuwa canfara kuwa Soomaali ah kuwa Caraba ayay leeyihiin waxay ku midoobeen markii u horeysay oo u mideeyay dowliye Fuad inay dulmiga diidaan nasiib darro waxaa soo baxday warar kale ayaa soo baxay oo baraha bulshada lagu soo tuuray rag magac ku leh dhulkaasi oo la dhageysto ay wararkaasi soo tabiyeen wararkaasi oo wuxuu dhimaya kacdoonkii dadka iyo midnimadii dadkani ay ku heshiiyeen inay dulmiga iskaga tuuraan waxaa ka mid ah wararkaasi nin wasiir ahaan jiray oo ka ahaan jiray wasiir dalka jamhuuriyadda Jabuuti wasiirkii hore tamarta Mr Fuad wuxuu sheegay in dulmi loo geystay qoomiyadda Cafarta in la xasuuqay in la dhacay in xaqoogii laga duufsaday in muddo aad u dheer oo 40 iyo dhowr sano ah dadkaas cadaadis lagu hayo wuxuu sheegay inay dadkaasi ra'iisul wasaaraha oo ay noqdaan uuna ahayn ra'iisul wasaare awood leh inuuna noqon ra'iisul wasaaraha oo la siiyo dadkaas wuxuu yidhi qoomiyadda Cafartu tijaarada kuma jiraan baa mushtarka kuma jiraan niqura ii sheegay niqura tijaarada oo qoomiyadda Cafarta ka tirsan wasiirka hore uu si wada hadalkiisa wuxuu yiri dadkaasi waa la xasuuqay waa dad la laayay genocide baa lagu sameeyay buuri uu si wada hadalkiisa wuxuu yiri wasiirkaasi waxa loo baahan yahay buuri maanta in raali gelin siino beesha qoomiyadda Cafareed su'aalahan weydiinay wasiir Fuad wuxuu yahay ama dadka kale taan weydiinayo ee ummadan la doonayo in loo iftiimiyo
horta fu'aadow kacdoonkii dadkan ay iskugu soo dhowaadeen ay ka faa'iidaysanayeen duuliye fu'aad xadhiggiisa dhabarkaad ka jebisay dhabarka ayaad ka jebisay dadkii wakti aanan joogin in la xisaabtamo oo la israali geliyo oo saami qaybsi laga hadlo lama joogay maanta waxay ahayd in la midoobo si dulmiga la iskaga dulqaado laakiin adigu waad kala dilaysaa dadkii fu'aadow waad kala dishay kow tan ra-iisul wasaaraha sheegaysid waxay ku xiran tahay in constitutionka la bedelo chef de gouvernemaagu premier ministerku inuu chef de gouvernement noqdo tahay constitution bay ku xiran tahay referendum in dalka sharciga la bedelay ku xiran tahay ma aha inay qowmiyadii arrinkaas saxday anagu ma saxiixin dadkan aan leedahay iskiisa bixiyaan oo meeya keedahay anagu ma bixin ma saxiixin heshiiska anagu ma saxiixin oo heshiis magac qowmiyad lagu saxay amba beeleed maaha waa magac waa wax lagu soo saxay dhul aan joogin anagu kolka magaceena inaad anaka tiraadid waa inaan heshiiska dadkaas iskiiska bixin anaka taa lama qabato qodobka labaad waxaad tidhi 43 sano xasuuq lagu hayaa waxaad u jeedaa arxibo wixii ka dhacay sanadadii 9-shanadii laakiin fu'aadow miyaad ilowday sanadadan 2012 mayd maxaa u dambeeyaa la yidhi xasuuqii buldhuqo maxaad u ilowday kii buldhuqo maxaad u ilowday tii sheekh muuse ka dambeysay maxaad u ilowday kaarxiba kolka boogaha caynkaasa ee dadka kala dilaya ragga ninka mas'uulka ah ee sidaa u fadhayi ee faqayi muxuu tarayaa kacdoonkan iyo midnimadan dadka maanta ay isku raaceen duuliye fu'aad dartii dhabarkuu ka jebiya aniga ila tahay waqti la isxisaabiyo lama taagno rejiimka jabuuti ka talayana magac ummadeed laguma dulmin cafarta magac qowmiyadeed magac beeleedna laguma dulmin cadaalad darro dadkan aad sheegaysid ha bixiyaan iskiiska aad leedahay haysata ayaa iyo cafarna ku dhacday wax gooni oo cafar ku dhacay ma jirto tijaaradda cafartu kuma jiraan baa tidhi tijaaraddu ma siyaasad baa tijaaraddu masaami qaybsi baa soo ninba wuxuu ilaahay siiyey marsada ma geysto kalama soo dego ma waxaad odhan kartaa dad lacagti haysto waxaad jirtaa loo diida baa jirta war wax walba anagu arrintaa fu'aad uu ku hadlay wasiirka arrintaa uu ku hadlay waa arrin aan la qaadan karin waa arrin horta kow dhabarka ka jebinaysa kacdoonkii ummadani ay diyaarisay ee la isku raacay waa arrin aan is odhan karno mataliskaa ka dambeeya mataliskaa ka dambeeya ayaan odhan karnaa arrintaas kacdoonkani si uu u kala jabo mataliskaa ka dambeeya allahu naxariistiya axmed diini baad ka sheekaysay oo la xidhay imisaa gubernimo doon ahaa aadan cawaale miyuu la gubernimo doon ahayn oo lasoo xidhay ma nin la daaya baa jiro gabadh soo marin aadan roobla cawaale miyuuna soo marin jeelka gabood muumin badoon miyuuna soo marin gabayo miyuuna soo marin saciid geed daxreed miyuuna soo marin ilaahay naxariisto kulligooga axmed idris oo daraad inta miyuuna soo marin jeelka gabood ma ninaa soo marin baa jirto dulmi lagula keenay maxaa axmed diini keligii keenay waxaa kaloo jirta arrin kaleto idin cajaa'ib ah sheekh cabdiraxmaan bashiir oo sheekh nin meelo dheer laga dhegaysta ah saaxiibkaya un aad u dhegaysto markuu diinta ka hadlayo aan jeclahay sida uu dadka wax u deeqsiinayo markuu siyaasad ka hadlo iyo qowmiyaddan qarniga afriqiya la dhahay uu isagu ka tirsan yahay iminka markaan dhegaysto wax badan baan isku diidi karnaa wax badan baanan ku raacsanayn wuxuu yidhi cabdiraxmaan bashiir dhulka jabuuti la dhaha 74% baa leh taasi maxayna tusaysaa taasi waa incitation à la sécession weyn waddanka in la kala gooyo ayuu ku dhiirigelinayaa inay dhul weyn leeyihiin in la dulmay cafarina lama leh oo cafariman leh maanta dhul baana laga haystaa ma laha
dul cafar ay ku dacwinayso yaa arkay yaa yiri cafar baale dhulka wala naga qaato dhul baa naga qaato cafarna lama aragtay oo ciise ku dacwinayso inuu ciise dhulka qaatay maxaa keenay hadalkan uu leeyahay Cabdiraxmaan Bashiir boqolkiiba 70 dhulka cafar baale yaa soo diiday cafar inay dhul badan leedahay ma taagan tahay su'aashaasi maanta dhul qaybsamay ma yaala waxa la qaybtamay la doonay ma dhul baa la isku haystaa Djibouti mise cadaalad darro la isku haystaa oo la leeyahay taliska cadaalad darrada sameeyay han iska qaadno Cabdiraxmaan Bashiir wuxuu yiri cafartu waxa mid walba wuxuu sheegay marka Cabdiraxmaan Bashiir wuxuu sheegay in cadaalad darro cafarta lagu sameeyay laakiin isaga cadaalad darro lagu sameeyo qoomiyadda uu ka soo jeedo ma sheegay markaas Soomaa waxaan aan taagnayn salaad walba waqtigeega la tukaday waxaan aan taagnayn ragga ka hadlay maxaad u malaysan dhulka cafar ay leedahay dhulkeega waa la yaqaanaa iyaduna way ogtahay intaana ku leenahay waan ognahay cafarna iyo ciisana Djibouti isku ma haystaan dhul maanta waxa la isku haysto waxa tahay talis cadaalad darro falay in cadaalad talis u fala dadka oo cadaalad u horseeda in la isku yimaado laakiin tii dhabarkaad ka jabinaysan waxyaabaha caynkaas hadad aad soo gelisaan waa arrin aanan taagnayn oo laga hadlay mid yiraahdo cafar baa la xasuuqay ee raaligelina siino iyo mille boqolkiiba 70 dhulka cafar baa leh miyaan uga guurnaa dhulka miyaan uga guurnaa anagu lama degan cafariyada la degan dhulka aan anagu leenahay cafarna deganta dhulka ma cafar baa la deganna ubuq baa la deganna cafar iyo tijoori ma la deganna lama degan laakiin iyadu dhulka aan leenahay wala la degan tahay Djibouti magaalada madaxda la degan tahay Cali Sabiix la degan tahay dakhli ma wada degannahay arrinka caynka oo lin meesha oo lin ragga keenay waa rag ujeedo kala leh maalasaf waxa isku arkaa inay kacdoonku hogaaminayaan war cafar dan nigama leh inaad tilaahdin waa la xasuuqay cafar kacdoon bay ku jirtaa kacdoonka dhanka raaca kacdoonka wax kala dilayo kala dirayna ha ku talinina dadka reer Djibouti waxaan u sheegayaa objectivekeenu ha noqdo in dawlad cadaalad ee dalkeena ka dhalato dawlad saami qaybsigeega beelaha qoomiyadaha wadanka ku degan ku nool oo dhan ay helaan in la ogaado inay dawladda maanta Djibouti ka talisay magaciisa ku shaqeeyeen inuuna ciise dhammaantii uuna u sinayn saami qaybsiga ka yaala wadanka ka jira inay koox yar qaadatay faa'iidadii qaranka in la ogaado weeyeen kolka inkoo ka tagaya waqtigani maaha waqtigii warjidkii oo la galin isbedel marka ay dadku doonayaan ee la leeyahay xorowno waa dariiq dheer weyn laakiin jidkii oo la bilaabin oo dabaarkii la taagan yahay halganka la gali doono haddii halgankii dhabarka laga jabiyay waa arrin dhibaatadeeda leh oo dadkii waxayna u joogin oo maanta in laga hadlayo assalaamu calaykum waraxmatullah innika la markaati ka noqon doona reer Djibouti maxaad ummadda u adeegtay intuu qaraxdaada sartay maxaa ubad ugu barbaaray markaad olyada u miistay maxaa oday ku duceeyey agoon koriyaa Djibouti